aan markaan kusoo dhaweynayaa gabadha qorta buugga waa Ifraax waxay nooga warami doontaa buuggi maaha laakiin hawsha ay qabatay iyo muhiimadda iyo in wax la qoro dhalinyarada kale marka ila soo dhaweey Ifraax soo dhaweey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي waxaan u maleynaa dad fara badan oo idin kamid way caajiseen mar dhow xal taagan dad qoftan ayad maxay noo soo wacdo meeshina maanta nagu la kordhigriyo mase in la canaanto af Soomaaliga maxay u baraweyseen la dhaho ma isas ma muhiimadan ugu weyn dabcan oo buuga u qoray aniga waxay tahay in aan qiimeeno luqadeena hooyo in aan qiimeeno waxa aan nahay maxaa yeelay maxaan ku yiraahdaa aqoon-yahano badan iigo maxaan ku horeeyay mid ah in shakhsiyadaada ay ku xiran tahay luqadaada afka aad ku hadashid wuxuu wax ka sheegaa waxa tahay ana hadda inta buuxaan iska dhiga dad kale luqadooda aan ku hadlo dabcan qof iga yeelay ma jirto inaan dad kale taa because waa loo jeedaa sa luqad islaameed ugu hadlooyo aan Norwich si kasoo isugu day inaan ku hadlo ma noqonayo Norwich ma dhacayso si kasto u barto si kasto nuur norga u dago oo ayaga bas ah ula joogo oo si kasto luqadooda u barto ma noqonay qofkii hor imaado uu fahmi kara in aan Soomaali laakiin wuxuu ugu ceebeynaa maxay noqonaysaa in luqadeeda aqoonin soo canaanta intaas ugu baxaya markii waxaan ku dhahay aan u laabto sababta xafladda aan u sameeyay sababta u martay qaada dadkan waxaan ku yiraahdaa sharafta badan hadaatiin akhristayaal iyo hadaatiin qorayaal hadaatiin aqoon-yahano hadaatiin dadka luqadaha xiiseeya sida nin oo kale masha Allah ma ahan in maxaan ku iraahdaa buug kale soo bandhig buug hore loo soo bandhigi jiray buug hore loo arki jiray luqadda Soomaaliga dad badan ay wax ku qoro way jiraan nasiib daro anaga reer weyn aad ay noogu yar yihiin reer usul hadii aan ahaan naftirkeeda aad ay noogu sii yar yihiin in aan wax ka qabanaa jeclaalaha arintaas in aan ogaano in anaga Soomaali hadaan nahay waqtigan aan soo saari karno ani Ifraax ahaan in aan wax qoro waxay ugu dhalatay runtii 2005 halkaan ku taalo sanad badan ka soo wareegtay 2005 wixii markaas ay taa qoro qofkii maanta akhriyo uu fahmi karaa inay wax iga qaldan yihiin like maxaa ku gali af Soomaaliga qarta inuu idho waa laga yaabaa qofkaas maxaa yeelay luqadda wax ku qoraayay waxay ahayd luqadda aniga aan ku hadlaayo luqadda aniga aan aqaanay markaas oo ah luqad maxaa ku yiraahdaa carruurnimo badan ay ka muuqato qofka hadda akhriyo waxa laga yaabaa inuu is yiraahdo something is wrong waxa uu jiro inuu dareemi karo laakiin horumar badan oo qofka bil aadanka sameynaya aan intaas oo sano waan jeclaa inaan noqdo qoraa inaan buug soo saaro in luqadda Soomaaliga aan wax ku qoro laakiin mar walba waxa jira xanibaadyo kala duwan oo diidayo sidii shirkadaha buugaagta soo daabaco ma waajib koowaad ku saarayaan waxay tahay in aad u keentid buug dhameystiran ee kadib warqado ka dhigan taas macnaheedu maxaa waaye adina soo dirtid wax diyaar ah ayaga warqado kaliya isku dhajinayaan seekan ku sameeyeen oo kale soo marka Soomaali aad tahay ma jirto caawin qof ka helayso Norway degan hadda xataa dhaad 100,000 krona bixina nin designer ah ee Norway ma sameey karo af Soomaali sababta u sameey karna waa sabab fudud maxaa yeelay ma fahmay wax meesha ku qoran hadoo dhawaad sameeyna erayo isku dhajina waxa laga yaabaa inuu wixii oo dhan hal marka isku wada dhajiyo oo noqdo wax la isku aqri dhararan oo waxba u dhaxeenin meel ku dhamaahaynin meel ka bilaabanin si kasto adiga sida qoraa u habaysid oo hagaajisid ma laga yaabo qofkaas inuu ku caawiyo ma sameey kariyo waa waxa maxaan ku macquulan ani marka caawinteeda alxamdulillah meesha ugu wanaagsan oo runtii hadda arintaas culeyskaas oo iga haray sanadkan waxay ahayd in aan Soomaaliya ka helay caawin dhalinyaro Soomaaliyeed inay jiraan maanta data engineering bartay diyaar u ah inay caawiyaan qof walba oo rabo inuu maxaan ku raahdo abuur oo yeesho waxa aad ugu faraxsanahay waaye runtii ani markii Ifraaxaan aan hadlaayo buugan hadeertaan wiilka maxaan ku ereeyay in design-ka galiyay ama breaking-ka waxay dhahaan shaqo ku sameeyay Soomaaliya degan yahay data engineering waa maxaan ku yiraahdaa macallin jaamacadeed masha Allah Cabdullaahi Sataal uu ku qoran yahay magaciisa buuga oo ka arki doontiin tan kale to maqan waxay taa ayadana sixitaankii wixii marka aad qortid oo aad dhameystirtid waxa u baahan tahay qof iyo 2 iyo 3 dad sax u baahan to ka daba aqriyo oo erey walba meel sax u yaala ereygan ma laga yaabaa inuu yahay erey is dadka fahmeenin ma waxa u baahan tahay erey ka fiican kan oo lagu fahmi karo waxyaabo fara badan laga rabaa inaad ka fikirtid wax fudud maxaan ku iraahdaa ma aan oo hal habeen intay kugu soo dhacaan aad sameeyso dhist way dhamaatay oo iska geynaysid kuwaas inta u geysay warqad ka soo dhiga
marka taa arintaas sixitaanka markay qosayso ayadana waxaa runtii mahadeeda iska leh oo aanan u hilmaameyn marnaba Cabdirasaaq waa ninkeyga aad uu runtii ugu mahadsan shaqadu qabtay waxaan u maleynaa wili banaanku jira oo dad kala wiciisin kala wada wiilka ka horeeyay oo sheegay asigana in design-ka buuga galiyay waa dumaashiga runtii taas ma beeni kara ayadana laba wiil oo isla dhashay oo ma sha Allah labadooda waxaan ku iraada dad hal abuur leh hore inay u socdo jecel ah haddana amaanta family aan nahay alxamdulillah taas keenaysa in wax walba ay free ay noqdaan oo waxaan ku iraada buugan qiimaha oo ku soo baxay oo noqdo qiimo aad aniga dib ahaan culays badan iga qaaday dhinacayga labadoodana runtii aad ugu mahad celinay qofka kale oo maanta aan rab halkan inaan ka xuso magaciisa wuxuu yahay wiil degan Ireland asigan waa dadka bartay data engineering ku jira wuxuu sameeyay sawirro qurux badan buug caruureed aan soo wada 16 bandhig aan u sameey doona asigana sawiray wiilkaas runtii waxaan isku baranay December hal maalin aan wada hadalnay maalin ku xigta go'aan oo gaaray ah sawirada buugaas ana sameeyay Soomaali ma waxa ku qoraysid buuga aku yiri waa Soomaali ana sameeynayo wax la isku haysta ma ahan ma la way kar sawir aniga maskaxdeeda ku jiro gacanteyda ku jiro runtii waa qiirona markaan dhaay maxay yeelay Soomaalimada ku weyn caawinta aan ka helay ma ka filaynin because qof wuxuu markaas isbaranay ma tsantaa Soomaalida badankoodana waxay yaqaaniin wax marka tiraada ii sameey in lagu dhaho ma qalacada ku qaadanaysaa waxa horta asmeeysid okay inta salacag ma ku qaadanay aan ma qan ku leeyahay ma ka helay runtii jawaabtaas waana taas tanaaday qiiro gelinayso waxa yeelay waxa u bartay dadkeen inay yihiin dad dantooda kaliya ilaashada waxaan rajaynaa duulayada buugaas aniga buugaas iga muhiimsan kan inuu maxaan ku dhahaa qiimo oo yeesho maxaa yeelay iyo kuwa kale taba laakiin maxaan ku iraada buugaas uu qiimo badan yahay waxay tahay wiil Soomaaliya habeen badan u soo jeeday oo ku muujinay wadaniyadiisa iyo islaamnimadiisa iyo jacaylka runta qofka Soomaaliga ah ka heli kartid marka aad daacad tahay oo aad tahay qof raba inuu wax u qabto bulshadiisa ma weynaysto qofku garab istaago ma weynaysto qof habeenkii maalinkii oo dhan shaqeynaya laba caruur oo leeyahay family oo leeyahay habeenkii oo dhan intuu soo jeedo waxaan xasuustaa habeenkii markii aniga maxaan ku gabar yar qabaa oo 4 bilood jirto oo habeenkii dhowr jeer soo kacdo nuujinay markaan qadka ku arko kaleeto markaaseeto dhahay maxaan ku dhahay okay hooshii ku jira oo soo jeedana markaati ka labada habeenimo saddexda habeenimo oo qadka ku jiro oo ka shaqeynayay masawiradaas dartood albaabkaas wada ka shaqeynay marka taas keenaysa runta arintiisa in maxaan ku iraada halkan aan ka magacaabo dad fara badan caawintooda ay tahay mid lagama maarmaan ah oo in badan maxaa ku eray buugan kan ha ahaado labada kale toon soo wada 16 ka ha ahaado u soo taagnaa habeena badan oo wax ka qabanaya dadkaas ha ahaadaan family ha ahaadaan asxaab waxa la dhamaantiin waa mahadsantihiin dadka raba sida qaaska runta halkan inaan ka sheego ayagoon marnaba ay igu xirin oo idin ifraaxi adigu waa ku naqaan saaxiib adigu waxaas buuga soo saartay akhrinaa naga tag dad badan aan micnay ku dhihi lahaa oo aan ku kalsooni ku tus lahayn dadka marnaba ay dhaleelin waxa kamid ah hani bila way maadsan tahay waxa kamid ah Yasmin way maadsan tahay waxa kamid ah Fawsiyo way mahadsan tahay iyadana waxa kale oo kamid ah Kowsar ma joogta u maleynaya dadka soo markii familkayga la soo dhaafo familkayga runtii famil aad u weyn waaye maanta hooyada caruurteeda hayso wiilasheeda ayadoo haysato oo la joogto gurigeegna maxaan ku iraada gabdhaha il dhashay iyo walaalkay ciidna kuwaas way u taagan yihiin Cabdirasaaq saako soo wacay Bulgaria soo dhakhtarnimo ka baranayo ir waa mahadsan tahay maanta dadaalkii aad sameysay Soomaaliya u soo bandhigaysa marnaba ha u maleyn inaa wax qalad sameysay wax qalad ma sameynin waxa sameysay way saxan yihiin dhalinyar kale taan kugu daysanayso maxaa yeelay luqadda Soomaaliga marnaba ma dhimanayso hadii loo helo dad qoro
marka mar walbeetaba maxaan ku iraahdaa qofka markuu qoraa uu yahay wuxuu u baahan yahay taageero fara badan wuxuu u baahan yahay dad fara badan oo garab taagan wuxuu u baahan yahay dad fara badan oo maxaan ku iraahdaa dhinacooda ka soo riixo yiraahdo waa awoodaa waxaanayto waa sameyn kartaa waa kugu kalsoonahay hore u soco laakiin qof walbeeta bulshada kamid ah ku dhahaa adiga horta dumar aad tahay maxaa ku geliya afaarahan ma walaalay gurigaaga joogto ilmahaaga haysatid sanadkan fasaxeed waxaa rabtaa inaad Soomaaliya warkooda ku dhameysid naa ilmahaaga hayso way badan yihiin dad ku dhahaayo waana la dhahay dabcan laakiin jawaabteeda waxay ahayd qof walbeeta afkiisu leeyahay nin walba wuxuu doono ka sheegi karaa afkiisa ani kugu meeysta afkaaga inaa waxa aad ka sheegtid laakiin ani ima niyad jabi kartid ani hore u socona sorry adiga waxa aad aaminsana ani hore u soconaya wixii doonta ahaato dad qofka kale tooro meeshan runtii waa mahadsantahay inaan ka iraado waxa waaye Saciid ala qeyrsiyo ma sha Allah runtii barnaamijkan aad uu ugu dadaalay inuu barnaamij qurux badan oo noqdo qaybtiisa ka qaatay ilaa hadartan kaamiradiisu la taagan yahay sidoo kale to walaalkay TV-ga halgan ka imaaday Xasan Rasta waxa hilmaameynin oo waxaan ku iraadaa habeen dhaxdaasa soo wacay iga qaaday waraysi aad dhageysateen Facebook-ga daarer Facebook atiin wada dhageysateen Cad Fitaax midnimo oo mahadsan yahay ma sha Allah jazakumullah waxaan ku iraadaa waa xasuusanaya maxaa yeelay si walaaltinimo daacadnimo ay ka buuxdo intuu isoo ugu yaray waxaan arkaa buugaas inaad sameynaysid ma awoodna inaan kula xayeysiino buugan kula suuq gelino daacadnimo oo runta ay ku jiraan waxaan ka rabaa ama saanan ka ahay marka waxa la yaabaa masha Allah aad u mahadsan tahay ma jeclaan inaan ku sii dheereeyo qofkii wax su'aala qabo ee ku saabsan buuga ma maxaan ku iraahdaa waxa jira dhalinyaro badan ee asbuucida la soo dhaaf ila soo xiriiray runtii af Soomaali ku hadla ee laha waxaan u baahanaa inaan noqono qoraa waxaan rabnaa buugteena in la soo saaro ma caawin kartaa absolute u hiil aqoonta magaca ugu jeedin meel kasta runtii u hiil aqoonta halkaas shaashada ku dhagan loogada waa forlag ama waxay dhahaan mabdacad Soomaaliga lagu yiraahdo buugta laga soo saaraa soo qof walbeeto oo idin kamida hal abuur leh raba inuu buug qoro ama tax heesto wuu ila soo xiriiri karaa asoo buuga ana u balan qaaday meel uma jirto maayela taas gacanteeda ku jirtaa maanta laakiin ani 10 sano aan daalay gacantas qof Soomaali ku meesi jiray maanta teedii ku jirtaa soo qof walba maray dhibka ani amaray هادو إلى يرادو مركا ما شاء الله هذا إذا سودوينا وحنا كلته هاد علينايا مرت الشرف تا هل كان محاكر سوي بيت مركلته نينا هذا وهم هاد علينا إني محاكو إري كسو جوابتي عطسيجاني أو إماتي وحن رجينا إنا وحكة برتين قبلين النرويج وكهذا ويلش غير نرويج كان نرويج وكهذا وحن رجينا إنا وحكة برتين مع لو قد هذا دادنا قيمين قفكو قيمين سم جرتو قفا وترسنتها أنا مجرتو وحن ربرونتي إنا وحير بوق إذا كجا أقريا بيج إنت إن كجا taa wax in kaga aqriyo laakiin hadii aad jeceshiin waayo kaliya نحر قد سير أنا وش أوكي هاي سكت عشان أنا أقرين سنة نحر قد أوكي أوكي بوجان فكر كيسوح يقصوا دعي لابد يكون يتوني سدحدي لابد يكون يتوني سدحدي صبته يقصوا دعي وحي إهات لباتوين فربنا الصومالي صومرتي ها هاتنا السياسة ها هاتنا بربرك قويسك ها هاتو لنا قبيلك ها هاتنا محانكو إرادة ضدكي إن يرون الضعيف سنايان قفك الدمر كأه إن وحكة لا تلو أركو صوت أقول لك قف الدمر قفك بوجان ما ضح ذكأه كلا وضع شيء كذا محانكو إرادة كلا جوينا يا وتص إن أتصدق كواد وأتص إن هين دمر كنفتر كوده إن أيهن ضد نول كو أنت صدمر نقارن إن هين ضد نول حقوق لا تاجنان كرا جوني اسكو تاجي كرا أنا هرت أطر سنة قبيل نصيب درة قف كسرت نجمدا قبيلة لوجو أبتري لك قبيل أمي ترسنين محيا مالك جورستك نيكا جورستك وقبيلته أو لو أكسوكر تكتب الصفرتين كم كلا جورستك وقبيلته عندنا like hello come on so قبيل ملهدين كوينا بنت اسكو شيء اسكو مودرن هبلو رتا يدي شيء يعني قبيل وحالة أنت عشان تمسنا سو جاريست مالك عشان تمسنا سو لفت معك السلام يا أباكم يقانو
ma fahamtay because nina u dhaxdo ninka u dhaxdaa ku dhalay ma garanayo waxa meesha ka socota arintaas laakiin waa xaqiiqada runtii nasiib darro xaqiiqadeena waaye waxaan dareemi kartaa gabdhaha Soomaalida markay iska guursanin qabiilka ka dhasheen sida micnihii loo riixayo oo si kale familka ayada ay ka dhalatay ee ku dhax kortay oo dhiigeedii ahaa oo maxaan ku iradaa dhinac wax walba ay soo siisay gabdho badan oo Soomaaliyeed ee yimid Europe xilliga hore 90meedii yimid runtii waxay aad dhiigoodii iyo familka ka dhasheen ama familka calashan dhaleen ay galiyeen ka soo tageen ka dhasheen maxaa dhacay laakiin إلا يراد الميد الصومالي مركي جيس اللي يراد سويالين فير وحي كانت صومالي حتى ميقانين لا إله إلا الله هوي لا أنت كجري جرين أيادي لعكت هذي على إبر لقى نيجا لقول نولا لقول صعدي الموضوع جامعة ذاك وجستين نلقى قصة مستين كبعلي الميد على عينها فيريا وفيلم كان أنا أبى بعضيه محاكي أما سيكي أما كشقي أما مالك استقطق التاجر وولالك وإن أدارك وإن هبلو وتاجر لا يا حتى نكدي الميد إنه كباب بس والميد ناركمان يكون ما تأصل قاطع تاجيهن فيلم كسر كاسة كقدام بينسو arrimahaas waxay aan markaan runta asla soo dagay ahayd aragtidii koowaad oo asla ahayd taas kas wadadii waxaan ku arkay dhalinyarada iyo dambiilayaal noqday wadadii waxaan ku arkay carruurta Soomaaliyeed oo nooc kale taa waxaan arkay hooyo cabsi fara badan ee ka muuqato oo ayada markaa fiiris xataa asalaantid cabsida la yiraahdo baan farna ay ku cunayso like who at least markaa aragtid you know caadi oo kula qayso marka aan ma deganaan reer asla ma ahayn 2013 soo guuray inta taqaana ogtaas koran bergrand gana kasiyorna waxaan deganaa meel yiraahdo Hardanger sibil yiraahdo Ulvik maxaan ku yiri marka halkaan ay mid waxyaabaha atrada badan arkay wala yaab waxa ku yiri sida waxaan ku dhacaan aniga xiriir fara badan oo wanaagsan Soomaaliya la leeyahay oo situation gabdhaha Soomaaliya jooga iyo nolosha ku noolin waxaan aad u ogahay waaye 2006 waxaan kamid ahaa dadka aad u jecel Soomaaliya inay aadaan nabadgelyo yariisa ka soo dhacday taariikh fara badan iga xiran Soomaaliya wadana aad u jecel oo ahaa ina aado waan jeclaa laakiin ma is suurta galin balse taariikhda wadanka maalmaalna ula socday dhacdooyinka 2016 ilaa 17 maalmaalna ula socday taas keenta taariikhdeeda ugu weyn ee buugan ku jirto inay tahay 2016 waxay ku base garaysan tahay inay tahay taas buugga wuxuu ku saabsan yahay marka waa gabar Soomaaliyeed ka guurtay London ayadoo wax baratay shaqaysato ayada iyo ninkeedii saddex cunug ay dhaleen isla guureen Soomaaliya tagan sababta ugu weyn ee Soomaaliya u aadan gabadhaas in ay aad wadaniyad ee tiri aniga carruurteedu kuma korin karo wadan aan diinteedii dhaqankeyga laga haysanin waxaan rabaa inaan Soomaaliya geesto meesha nabada laga sheegay 2006 la marooya maxaakiimta islaamiga soo dhac warniyo wala maxalkaana dhigay nabixi isna xeer masada ma ka daacada hadda Soomaaliya arta laga cilaaya ma Soomaaliya ka cilaa Muqdisho ka cilaahay hayado nabixi alaabtaada gurbiso wala baxay wala tagay meeshii wala noolaado wala joogi laakiin wala raaxaystarta bismillah wax masawir laga soo diray 2006 Soomaaliya arkay badal isdhigay waxa go'ir caadi ma ahayn masawir fara badan oo runtii xasuusto asxaab fara badan kala xilligaas ku baxay iyo ku xaga joogaba ee soo direen waxa masawir aad ku soo jiidanayo gabadha marka masawirkaas way soo bandhigaysaa way ka sheekeynaysaa wixii ay shopping sameysay wixii hadiyada dirtay wixii reer London u faantanaa hoy nolol ma ku noolidin naga hara ee ku tiri waase looga daba yimid 2007 baa ka dambeysay oo nasiib darro ninkii baabuura kala gooyay موسى دمان أذنك آخر دونا بحان كيرادا أنت سأكون درس أول ولا ما استوكش جعل قدنا كل جزء لا أكو قاعد على نادي كل مركوا وأقلي تنكله فملكي عرورته دي هالكاسة تبعت كجارسة وكجد أنتي قبضني wiilkii dhaawac loogu ma simine waxa loogu dar hadana si ay inay imaata Mareykan dhahay warninka waa argagixiso asaab u baahneen anaga soo doonano isbitaalka ka soo qaataan helicopter-kan san wadan Afrikaan ka soo tuura meel uu ku yaala ba la aqoon nasiib wanaag dad ay taqaanay meesha kul kulmaysa gartideeda keenis in ninkeedii London dib ugu celiso sanada ay qaadato inuu socdo Soomaaliya laakiin maxay inta la sugaa ninkan inuu socdo na maxaa ku agdhigay يا ما لو عفنا هذا ما لا حد علمي كان انتين دباتك ما جرت معني فكر قف كان قف دباتي سو إله لو عبسد حتى وحال تاغي ان كانت ka shaqeeyelo gabar dhalinyaraha tahay sidoo jiraatay jirkaagu isku yaala waa qurxanta soo guurso ninkaanay tan horta muxuu ku faraam muxuu ku qabaa ma jooge soco marka dhibaatooyin fara badan ay kala kulantay meeshaas seeto tan kale buugan aadka ugu runtii ugu magacaabay oo aan rabo inaa fahantiin waxay tahay dhibaatooyinka qabiilka dhalinyarada markay qosayso shaqada markay qosayso albaabka gargaraacid baa Muqdisho maanta yaa taaka ku taalo taas ma sharafa adan ku deeran jawaabteeda tan kaleeto oo rabo mowduuca halkaan inuu ku dhex jiro oo kaaga soo qaadayo wuxuu yahay ilmaha curyaannimada ku dhashay ama ku dhashay cudurrada kala duwan iyo dhibaatooyinka aan ku hayno ayaga iyo waalidiintooda
والله وواح أد لوجا نحو المها يريسكا أو تسمها قبو المها يريسكا داون سندروم كقبو هو يدان أما أباهن دم بيجيس ما أهن إن أو قبل عذر كاس إنه جيس هذيك على وجه تحامي كرابيرتو قبل السلام العلو جذا عين يسد هذا نقكره أنت جلي مركز سويدي هرتا يا ويلك أنت جلي لو حكمت هاد ضدك في وركاس قبل الله يراهات قبل بدنا ماشي ما أنت ماشي فديو قبل الله يراهاتين وصبت قبل أوقاتنا وحيتها وأيق ضدك بدنا فافيو أما إن ده أذيك قبلها كانت تكون سدان له رجع بدنا حوجا ونجا وحش هذا الرماس مركي قصيصه لكن أنا قبلها هدان هاي أفكان آذو فليه والله وأنا حسابتنا because هو إذا داوع أوجيستي ما لقى ياب إنه أيضا قصنا مالين كاجي إيمانيسا وحول بيته هذا أسميست ويسوي ويكون إيمانيان marka halkaas ugu baxaa sheekada halkaas ay ku socotaa waxaan rajeynayaa dadka aqriyay oo ama aqri doona inay ii soo celiyaan warbixin ama ku saabsanaato luqadda ama ha ahaato maxaan ku raa waxyaabo qalad u arkaan ama ha ahaato waxyaabo sax arkaan whatsoever ha ka maxaan ku iray la laabanin inaad soo dirtid jawaabtaada ama aragtidaada ku aadan ila ooy waa mahadsantiin أنا مو آخري إلى هم يكوري حل إنها أولاد كعبسنا مو جامك آخري محلي وحلقي أنا يكتب الأبية فرح كهر قرآن كوا آخر ست ما كان جامعة كشبيلتي حديث كوا آخر ست حكى الربيع يا لا القرآن كالربيع حديث كبرت أبي ذكر كالربيع التيوري تسمع مكة ما كان جامعة دوافع قشي فاتوري جراني وقد ما كفو حيستو بس كتوري جرا دوافع كتوري جرا حتى لو كن لو مثلا أنا دوافع لنا صاحبنا مركز هذا نوع موتور هذا ماشي كويس صاحبك والله بلوعي اسكتور محيا حرام كمان نعبنا وصل السلام مركز أتوت والله اللي صاري بنقال ليش إنك شقينا قررك قاعدنا مركز محيا أوصلكم موتوري سحرم كوتورة أوصلكم موتوري و مركز حديث وصبرتي إيمانك هذا عن الطريق يعني إيمانك إنه درجونك اللي هي درجة وير إنه تاي إيمان هذا عن الطريق جدك والله قال لي حيو لبك حديثكم من أقبل لكن دم حديثك دم بجمال أنا دم بيسكله لكن أنت ما تورك والله ساس الله صفيرنا قولوا أنتوا ترتوا مقشن سماع السماع هبرتري ماشي كقد باش مركا هذه أيضا أمانة يا مشكلة مشكلة بدن يكون هذا سماشاس waxay u baahan tahay in lagu istaago mushkil kasta in lagu istaago waad noqonaysaa inta waxaad ku haysataa caafimaad fiican waxaad ku haysataa ixtiraam waxaad ku haysataa dhaqaale fiican laakiin aadaanki ma laha hilib fresh oo xalaal ma laha daris aad ka cabsanin ma laha ilmaha oo dhan dadka waalidiin ma laha waxaas waa rabaa Soomaa laakiin waxa ku iibsata waxa aad weynaysid rasaaladana siinaysaa soo message ka bixinaysaa soo way noqotay gabadha fartuun ku celceli doontaa marka aad iyo aad ku amaana وانا ما سنتي يمكن وما حسين ياهي دكتور محمد حسين sida dheer uga hadlay maxay taa in wax la qoro iyo buug naftirkiisa wax ka taabtay intaas kadib waxa inoogu xigi doona horta in wax la qoro ha joogtay horta waxbarashada gabdhuhu sidee ahayd oo gabdhaha soo ka hadlayno waa Soomaalida dumarka Soomaalida waxbarashadoodii موضوعaas waxaa nooga hadli doonta maama Amina Axmed Abubakar oo ah aqoonyahanad ka baxday iskuuladii SYL kadibna wadanka Masar wax ku soo qaadatay waxbarasho sare kulliyadda ganacsiga iyo maamulka ay ka soo baxday kadib waxay shaqooyin kala duwan ka qabatay maamuladii dawladihii kala duwanaa ee dalka soo maray waxay noqotay agaasimaha guud ee wakaaladda ganacsiga ummadda Soomaaliyeed 83 ilaa 90 kadib markii dalka uu ka dhacay burburkana waxay u qaxday dalka Yemen halkaas oo ay ka ahayd macallimad marka ila soo dhaweeya maama Amina waxay ka hadli doontaa doorka waxbarashada gabdhaha Soomaaliyeed xilliyadii hore السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين ونأكسن سلام كدب وها عاو شرف إيعة إن أنك سوق قيب قالوا حفلة بندقة
buugga ay qortay gabadhayna ifraax yuusuf ciyow. runtii buug la qoro wax fudud ma ahan. qoritaan wuxuu u baahan yahay aqoon, khibrad, dadaal iyo waqti. waan ogahay ifraax inay tahay hooyo, haddana ay shaqayso, haddana kartideeda waxay gaarsiisay in ay waqtigeeda yar ay ka faa'iidaysato, ay buug qiimo leh noo soo saarto. ay buug qiimo leh ay noo soo saarto. aniga caawa xafladan doorkayga wuxuu ku saabsan yahay in aan ka hadlo waxbarashadii iyo tacliintii gabdhaha Soomaaliyeed qarnigii naga tegay oo 20aad. waxaa jirta runtii markuu sanadka ahaay 1920 ilaa 30 gabdhaha Soomaaliyeed iskool ma dhigan jirin, laakiin qaar dugsi bay dhigan jireen, quraankay dhigan jireen, ayagoo yaraa la geen jiray. markay xoogaa soo weynaadaana dugsiga waa laga reebi jiray. laakiin gabdhaha Soomaaliyeed waxbaa la bari jiray. gurigooda waxaa lagu bari jiray akhlaaqda, lagu bari jiray waxaa lagu bari jiray maareynta iyo maamulka guriga, lagu bari jiray waxaa lagu bari jiray waxa toosan iyo waxa aan toosanayn baa loo kala bayaanin jiray. leegadii meeshaas way yareed, way ka guureen xarun ka weyn, xaruntaasay qaateen. xaruntaas waxay ku tiilay taalada Iswaayeel iyo masaajidka Isbahaysiga iyo Ceelgaab meel u dhaxaysa oo ku yiilay. meeshaas fasalo badanaa laga sameeyey. gabdhahana qayb bay dhigan jireen, wiilashana qayb bay dhigan jireen. markaa waxaa dhacday in macallimiin fiican aan qabnay. leegada dadaalka ay samaysay waxaa waaye caruurta waalidkooda ladan yahay bishii 3 shilin oo fii ah laga qaadi jiray. dadka tabarta yar iyo masaakiintana firiyay ahaayeen. laakiin waalidiinta iska ladan iyo dadka leegada ka mid ah ayagana tabarucaad ay bixin jireen. iskoolaadka saasaa lagu maamuli jiray. intay tacliinta saas ay u socotay, haddana isla markii waxaa jira iskool oo Regina Ellen la yiraahdo oo aftalyaani wax lagu baro oo gabdhana ay dhigtaan waa jiray, laakiin saas tirada ma u badnayn. iskoolka leegada af Carabiga wax lagu dhigi jiray. gabdhihii way soo bateen wax baranayay. waxaa dhacay 1950kii Soomaaliya waxaa yimaadeen wadaado ka socda hay'at al-Azhar, azharka ka socda. waayahaas azharka maaragtay wuu danayn jiray wadamada islaamka sida Soomaaliya iyo Malaysia iyo Indonesia iyo Pakistan iyo wadamadan oo la yiraahdo Maghrib al-Arabi, waxa way Morocco iyo Algeria iyo Libya iyo Mauritania iyo wala danayn jiray. markay yimaadeen dad oo maaragtay midaysan oo Soomaali masili kara oo wafdigaas ka hortigi kara waxay ahaayeen guddi ka socda leegada. waxay yiraahdeen maxaan idin qabanaa? waxaa laga dalbaday 2 shay. waxay yiraahdeen waxaan rabnaa wiilal inaad noo qaadaan, qaarna azhar wax ku soo barta, qaarna iskoolaadka caadiga ilaa heer jaamacadeed, iyo in maaragtay iskoolaad noo furo, aad nagu kaalmaysiin. waxaa dhacday in 1950 wiilashii waa la qaaday 52. haddana wafdi ay yimid oo azhar ah si ay u fiiriyaan maaragtay dalabaadkii hadda ka hor laga dalbaday sidii loo fulin lahaa. guddigii markaas qaabilay aniga waxaa ka mid ahay, aabaheeyaa ka mid ahaa, wasaaradda caafimaadka u shaqaynayay. marka waxay yiraahdeen dadna waa la idin qaadaa, iskoolaadna waa la idin furaa. 52 markaas maxaa la yiraahdaa Masar
thawradii ka dhacday Jamaal Cabdinaasir iyo waatay xukunka qabsadeen 52 aabbahay idaaradii wuxuu u soo jeediyay fikrad wuxuu yiri dadkan kaalmo inay nasiyaan way ogol yihiin aan codsano gabdhana inay noo qaadaan waa markii ugu horeysay gabdho scholarship ay aadayaan marka waxyaha la yiri waa la weydiiyay waxay yiraahdeen waa ogolnahay waa idin qaadaynaa gabdho idinkana soo diyaariya annagana tartiibaadkii iyo maamulkii iyo sidii loo qaabili lahaa iyo halkaas ka qabanaynaa Soomaalidu waagaas way isjecleed min waqooyi ilaa koonfur ilaa gobolada oo dhan leegadii way weysiisay gabdha la qaada qofkii raba ha soo gudbiyo magaceeda in waqooyi waa jawaabti waa la soo daaheen in goboladana hal gobol kaliya hal gabar keenay gobolka Jowhar u ahaa intii kale waxa ay ahaayeen Muqdisho sababtu waxa way zamankaas Soomaalida muxaafidiin ay ahaayeen qaar badan dhib la ahayd gabar inay dibadda u diraan marka waxaan noqonay 18 qofood 18 gabdhood 17 oo reer Muqdisho iyo gabar Jowhar laga soo diray 18 kaynaas 1953 Masaraan aadnay si fiican aan noola qaabilay yani in iskoolaadkii nin walbaba heerkii uu marayaa la geeyay scholarship-kayni wuxuu ahay ilaa heer jaamacadeed ugu badi annaga 18 kaynaas ugu badi jaamacadihii waa soo dhammaynay markaan soo laabanay administration-ka aan ka wada shaqaynay kulligeenna heer fiican aan gaarnay alxamdulillah marka in waxaa dhacday ka bacdi in Jamaal Cabdinaasir يعني أهمية خاص أو سومالي سينجري wuxuu yiri hadda ka bacdi ardada la soo diraayo waa iska caadi laakiin wadankooda in wax lagu baraa ka fiican waxa la sameeyay laba iskool la sameeyay iskool la yiraahdo madrasada Thawra dugsiga wuxuu ahaa asaasiga gabdhii wiilal dhigan jireen secondary-na waa la sameeyay waxa la dhihi jiray madrasada Jamaal Cabdinaasir dadka Soomaalida reer Muqdishona Allah u yaqiineen korkeeda waxa saarnay ku qornaa maaragtay kelmad Allah ku qorneed marka waxa Soomaalida tacliintii way u fududaatay marka waxa dhacay in scholarship waxaan gaarnay in lixdameeyadii 300 oo arday in aan scholarship Masar aan joogna gabdho iyo wiilal oo tacliimta caadiga barto min ibtidaa'i ilaa heer jaamacadeed Azharna gooni ahayd dad badan oo culimo ah ka soo qalin jibiyay Azhar la maaragtay xataa Soomaaliya si fiican looga yaqaan Allah u naxariisto Sheikh Maxamed iyo Sheikh Cabdinuur waxay ahaayeen dadkii Azhar ka yimid Sheikh Abdullah Faarix oo reer waqooyi ah asaga waa ka yimid iyo mashaayikh badan ka yimaadeen marka dhankaas waa dhankii koonfur waqooyi 54 ay bilaabeen gabdhaha inay u diraan Masar in kooxdii ugu koowaad 5 qofood ay ahaayeen 5 gabdhood ka bacdina sanad kastaba uu dad baa imaanayay marka in ka bacdina Talyaaniga bilaabay asagana inuu maaragtay kuntimeeyadii waqtigii dambe inuu gabdho Itaaliya u diro oo sekretariyada iyo acmaalaha maamulka xafiisyada iyo la soo baro ka bacdina heer jaamacadeed wax walbaba ka bacdi hadana lixdameeyadii waxa wadamadan socialistiga ahaa bilaabay ruushka in la aado Jarmalka bari Yugoslavia maxaa la yiraahdaa Romania Czechoslovakia برضو قبل بدنا كسو قلن جبيين أي تشكوسلوفاكيا وتخاطير على العموم إن أرنتي ساسي إهد أننا سيفضوط وحبكو مسو برانين مركان بحيني وايرين قبل نوغو يروحي جرتي 8 سنة تن وين اللحية 8 جرتي
laba leeweynay mid 16 jir ah iyo mid 14 jir ah intayna kale 9 ilaa 11 sano aan u dhaxaynay dadkayna wayna la dardaarmeen saddex shay baan ugu la dardaarmay koo waxaa la yiri akhlaaqdiina waa in ay toosnaataa akhlaaqda ku dadaala tan labaad waxaa la yiri meeshaas waxbarasho la idinku dirayaa waxbarashada ku dadaala tan saddexaad waxaana la yiri afka Soomaaliga yuusan idinka dhumin marka darsigiina ku jirtiin oo dadka kale masaarida aad la joogtiin afkooda Carabiga kula hadla laakiin kaligiin markaa tihiin af Soomaaliga iskula hadla waxay ahayd dardaaran aad u adag saa daraadeed kulligeen af Soomaaliya markaan kaligeenahay af Soomaaliyan ku sheekaysan jirnay af Soomaaliyan ku wada hadli jirnay afka nagama dhumin annagoo yaryarana la diray laakiin afkayna waa haysanay annaga nasiib ma lihidin ma lahayn sidiinoo kale waagaas afkayna ma qornayn yaa wixii aan dalka uga tagnay baan maaragtay wadanay laakiin maanta idinka nasiibaad leediin waxbaad akhrisan kartiin af Soomaaliya ku akhrisan kartiin af Soomaaliya baran kartiin waa isku la hadli kartiin laakiin dadaalkii waagaas annaga markaan yarayn aan afka saas u haysanay maaragtay jiilka cusub ma ahan ayaan dhaxdaas waxaan arkay anoo basaran aan la yaabay waxaan arkay hooyo Soomaali ah oo gaariga yar oo caruurta waxa ugu jira cunug oo sanad iyo bilooyin jira 2 sano waa ka jiryahay agteeda meel ahaan fadhiyay cunugiya xoogaa intuu nuuxnuuxsado waxay damacday inay la hadasho afka dalkaani kula hadashay cunug 2 sano ka yar sidee loogu la hadli karaa yaa cunuga maaragtay waa in afkiisa yani hooyo lagu la hadlaa asagoo yar marka gabdhaha waxaan ku la talinaa gurigiina markaad joogtiin af Soomaali ku hadla ilmihiina shakhsiyaday ku yeelanayaan qofka Soomaaliga shakhsiyadiisa laba shay lagu gartaa muuqaalkiisa ay qof anoo jidka socda hadaan aan arko inuu Soomaali yahay muuqaalkiisaan ka gartaa tan labaad afku ku hadlayaan ka gartaa marka afkaaga iyo muuqaalkaaga waxa waaye shakhsiyada Soomaalinimada waaye labadaas waxa waaye inaad inta gelisaan wariyaa qofka Soomaaliga wariyaa markii la yiraahdo soo jeesana yaa ma garateen marka waxaa kaloo jira raalliga adaan hadalka dheereeya hal shay bisaan dhahaa tan kale waxaa waaye maxaa la yiraahdaa dawlad kastaba oo Soomaaliya soo xukuntay wax wanaagsan iyo wax fiicanba waxunba waa leeyihiin dawladda kacaanka Maxamed Siyaad hal shay ma loo ilaabi karo in ay si geesanimo ah go'aan ku gaartay af Soomaaliga in la qoro لأنه وحواي من لباتنيدي إلى محل يرهدا لحدا يسقالك وحي كدن بيتضباطن iyo gogo af Soomaaliga maxaa lagu dhigaa konton sano wax ka badan lagu murmaayay marka Soomaalida maarto wax faa'iido ah markii la rabo in loo sameeyo ra'yigooda lama qaato go'aan cad la siiyaa Maxamed Siyaadna taas uu ku fiicnaa على حنين لو جرت حنين تاس اسكا داف gabdhahan waxaan ma oga ma aragtay arintaas hal shay inuu fududeysay waxa way dadkeena administrationka waagaas ka shaqeynayay laba luqad lagu shaqeynayay Talyaani iyo Ingiriis lagu shaqeynayay Soomaalidii oo wax soo baratay qaar af Carabiga yaqaanaan qaar af Ruushi yaqaanaan qaar Talyaani yaqaanaan xoogaa Ingiriis yaqaanaan xafiis hadaad fadhidid nin walbaba luqad kale
waxaa dhibka ahaa ninka agaasimaha ku af talyaaniga ku hadlaayo yaa warqaduu qoro amba hadduu warqad kuu soo dhiibo af talyaani aniga carabiyaan aqaanaa talyaani masalan ma aqaani ingiriis laakiin waa aqaanaa marka administrationka dhib weynaa lagala kulmi jiray madaxda iyo shaqaalaha ka hoos shaqeeya afka iyo korresbondensada dhib bay ku ahayd saa daraadeed xafiisyaha warqadaha ka jawaabidooda waa daahi jirtay waxaan arki jiray kuwa waxay ku qorantay talyaani miyaha dee iga dhig yaa qof talyaani leh yaqaanaha loo gudbiyo waaye ka kalena waxay dhahaan ingiriis ay ku dhigan tahay iga dhaaf yaaqay waa kaasa meeshaasaa la dhigay laakiin af soomaaligii markii la qoray arrintaas waa dhuntay nin walbaba wuxuu noqday yaa wixii loo keeno isla markii inuu howl ka qabto isla markii inuu ka jawaabo administrationkii fudayduu noqday marka warkii ugu dambeey intii ahaa gabadhayda ifraax waxaan u rajaynayaa najaax inay hesho iyo horumarin khayrna allaha siiyo buuggan caawa aan arkayna ila ooyna gadaashiis kuwa kale inay yimaadaan aan rajaynaa insha allahu tacaala markaa waad mahadsantihiin khayr badan soomaaliya ha noolaato ilaahayna maaragta wadankayna khayr iyo barwaaqo ha siiyo soomaalidana ha midowdo hooyooyinka yaryarna waxaan kula talin lahay caruurtiina ku dadaala af soomaaliga bara yaa af soomaaliga kula hadla wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsan tahay runtii hadal dheer oo muxuu ahaa dardaaran iyo isugu jiran muxuu ahaa dhiirigelin waxaan malaynayaa waad ogtihiin dabcan waa laga sheekeeyey wixii laga soo maray waxbarashada gabdhuhu marka maantana waxaan malaynayaa boqolkiiba hadda Norway inta waxbarata jaamacadaha ku jirta boqolkiiba 70 iyo ka badan gabdho weeyaan marka taariikhdaas horena way leedahay marka aad u mahadsantahay insha Allah siday maxaa la dhahaa barnaamijkaas uga hadashay marka waxaan u yeeraynaa marka Nina Hagen hon har språkvetare och har skrivit masteruppgave om Somalia. För tiden undervisar hon i norska vid universitetet i Oslo och jobbar som vetenskaplig assistent vid Multilingual Center för flerspråklighet. Där hon kan upp och fortälla lite mer. Hon ska presentera oss vår viktig språk är samfund. Välkommen. Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme. Jeg heter Nina, og jeg er språkviter. Jeg er forelsket i Afsomaliga. Og jeg har skrevet masteroppgave om Somali. Ifra spurte om jeg ville snakke litt om viktigheten av språk. Og dere er jo norsk-somaliere, eller somaliere i Norge, eller nordmenn med somalisk bakgrunn, eller hva dere nå enn definerer dere som. Men da er dere flerspråklige. Og det finnes en del myter knyttet til flerspråklighet, så jeg tenkte at jeg skulle begynne med å knuse noen av dem. Skal vi se. Ok, myte nummer 1. Barn fra språklige minoriteter må snakke norsk hjemme for å lykkes i skolen. Dette hører man noen ganger politikere si, eller lærere, eller barnehageansatte. Har dere fått høre det før? Er det noen som har fortalt dere at dere må snakke norsk til barna deres hjemme? Ja, så bra. Ok, folk har fulgt med. For det kan jeg si med en gang, at det her, det er bare tull. Stol på meg, jeg er språkviter. Forskningen viser at det å bruke morsmålet hjemme, det er viktig
viktig. Skal vi se, dette var veldig vanskelig med å måtte scrolle. Skal vi se. Morsmål er viktig for å utvikle et sunt forhold mellom foreldre og barn. Og det er veldig viktig for å kunne lykkes i skolen. For eksempel så legger det grunnlag for sosial trygghet. Mange unge norsk-somaliere som jeg har snakket med, de beskriver hvordan de selv snakker norsk bedre enn de snakker somali, mens foreldrene snakker somali bedre enn de snakker norsk. Er det mange som kjenner seg igjen i det? Ja. Det er jo egentlig en ganske absurd situasjon, fordi det burde være det naturligste i hele verden at man har et felles språk med sine foreldre, ikke sant? Er dere enige? Ja. Så det å snakke somali med barna sine, det er viktig for identiteten, for at man skal forstå sin bakgrunn. Det er mange jeg har snakket med som føler at de ikke føler seg helt norske og heller ikke helt somaliske. Er det noen som kjenner seg igjen i det? Ja. Og vi har alle sammen behov for å forstå hvor vi kommer fra, ikke sant? Og det innebærer blant annet at man kan kommunisere med sin nærmeste familie, men også med familie i andre land. Og så det er en ting da, identitet, forståelse av bakgrunnen, hvor man og forståelse av sin bakgrunn og hvor man kommer fra. Men så er det også viktig for språkutviklingen mer generelt, for å lære ulike begreper. Så begrepsutviklingen skjer ofte på morsmålet. Og hvis man har mange begreper fra før på sitt morsmål, så blir det også lettere å lære norsk, ikke sant? For da trenger man bare å lære de norske ordene, så det blir som å sette merkelapper på kunnskap man allerede har. Og sånn sett er det faktisk bedre å snakke morsmålet hjemme enn å snakke norsk hjemme, for det gjør det lettere å lykkes i skolen. Så hvis det fortsatt er noen som prøver seg på å si «snakk norsk med barna hjemme», så send dem til meg, for det er feil. Men hvordan kan vi lære barn somali på en effektiv måte? Nå kommer jeg til myte nummer 2, som er at det er viktig å rette på barn når de snakker feil. Forskning viser at det å snakke feil, det er såkalt feil, det er en naturlig del av barns språkutvikling. Det er noe de skal igjennom, og noe de trenger å gjøre for å lære seg sitt språk. Feilene retter seg selv etter hvert. Det å lære språk, det er vanskelig, det vet vi alle sammen. Men barn er utrolig gode på det, fra naturens side. Vi er skapt for å lære språk. Det er bare det at man trenger litt tid. Det som er viktig, det er at barn får bruke språket aktivt. Det er sånn de lærer, ikke ved at norske henger seg opp i, nei, at voksne henger seg opp i feil. Jeg har hørt mange somaliere i foreldregenerasjonen som gjør narr av barna sine, og gjør narr av somalisken til barna sine. Hva syns dere om det? Er det så lurt? Veldig ledende spørsmål. For da kommer jeg til et annet poeng. Nemlig at det å fokusere på feil, det skaper en negativ opplevelse for barnet. Man får ikke mer lyst til å snakke somali hvis man blir gjort narr av hver gang man prøver. Det kan føre til språkangst. Det er ikke et ord som jeg har funnet på, det er et reelt problem.
Jeg har litt språkangst, og det er derfor jeg snakker norsk nå, og ikke somali. Men det er også vanlig i innvandrersamfunn. Så for eksempel så kan man ha angst for å snakke norsk når man er sammen med nordmenn. Man kan ha angst for å snakke somali når man er sammen med somaliere, fordi man er redd for å gjøre noe feil. At man ikke skal være god nok. Så her kommer et lite tips til foreldregenerasjonen da. Bruk somali aktivt, men gjør det på en positiv måte. Skap positive språklige opplevelser for barnet. For språk er gøy, og spesielt somali. Somali er gøy. Og jeg vil også si at somali er et språk og en arv som dere skal være stolte av. Og derfor så har jeg lyst til å knuse en myte til. Nemlig den her. Somali er et fattig språk. Det har jeg hørt noen si av og til. Dere tror at det er et enkelt språk, fordi det er morsmålet deres. Med mindre dere har studert grammatikken, ikke sant? Da vet dere at dette er feil. Af somaligu wa af adank. Af somaliguna wa af qani. Det er et rikt språk. Det er mange grammatiske fenomener i somali som er sjeldne blant verdensspråk. Og som gjør at det er et interessant språk for oss som språkvitere. Og jeg rekker ikke å si så mye om det i dag, men kom bort til meg etterpå hvis dere vil høre mer, for jeg elsker å snakke om det. Somali har dessuten en lang tradisjon for poesi, språklige bilder og ordtak. Så det er et rikt språk også på denne måten. Somalia har blitt kalt a nation of poets, ikke sant? Det har dere sikkert hørt før. Og lenge ble poesien overlevert muntlig. Det var det som var tradisjonen. Men så skjedde det noe, og nå har jeg lyst til å lese et sitat for dere. Somali er rikt på litteratur og poesi, og kan sammenlignes med de beste språk. Gjennom muntlig overlevering har våre forfedre gitt oss en rik arv å ta vare på og utvikle. Imperialistene og kolonimaktene satte somalier opp mot somalier, alfabet mot alfabet, klan mot klan. Hadde vi hatt et skriftspråk, hadde ikke dette fått foregå så lenge som det gjorde. På grunn av dette er 90% av vårt folk analfabeter. Som dedikerte revolusjonære må vi nå sørge for at det som har blitt overlevert til oss gjennom århundrer, ikke går tapt. Hvem sa dette? Vil dere gjette? Er det deg? Dette er fra talen som Siad Barre holdt i 1972, da skriftspråket ble innført. Man kan si mye om Siad Barre, og vi trenger ikke å ta den diskusjonen nå. Men en ting er sikkert, og det er at han skjønte at språk er viktig. Det var en sterk sak for han og for militærregimet var å få innført et somalisk skriftspråk. Han skjønte at språk er viktig for identitet og for kulturhistorie. Og også for å unngå klasseskiller. Så 90% var analfabeter. Det betyr at det bare var eliten som kunne lese og skrive. Men med militær effektivitet så fikk de så å si tvunget befolkningen til å lære å lese og skrive. Så over natta kunne plutselig alle lese og skrive. Det var ikke så enkelt, men nesten. For det var jo nesten så det var ulovlig å la være
å lære det nye språket, ikke sant? Det var litt spesielt, men det lå også først og fremst en veldig sterk stolthet i det her, å endelig kunne se sitt eget språk skrevet. Så jeg har lyst til å avslutte med et litt nyere sitat. Fra en nordmann. Dette sa Knut Olav Åmås i Aftenposten nå i januar. Språk er historie. Språk er dokumentasjon av vår samtid. Og språk bærer også i seg så mye av verdier og identitet. Hvem vi har vært, hvem vi er, og hvem vi vil være. Men for å bevare språket, så må vi bruke det aktivt. Og det er derfor det er så fantastisk at det kommer ny litteratur på somali. Og det er derfor vi skal feire i kveld. Ifra og Ila Oi. Tusen takk for meg. Tusen takk. Aad bay u mahadsan tahay. Waxaad moodaa waqtigu inuu yaraan naga cararayo, marka waan isu qabanaynaa markaan kadib. Qofku waxa uu leeyahay 10 daqiiqo ilaa 12 daqiiqo waana la baxsatay, marka naga raali lahaada marka hore waan soo daahnay. Hadda waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Maxamed Abtidoon, waa qoraa, waa macallin cilmi baare xarunta cilmi baarista Soomaaliyeed ee jaamacadda Rome. Wuxuu ka tirsan yahay oo kale akaademiyada maxay ahaato fanka iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Maxaa la yiraahdaa, wuxuu ka hadli doonaa sidoo kale wuxuu ku jiraa akaademiyada goboleedka afka Soomaaliga iyo naadiga la yiraahdo qalinleyda Soomaaliyeed, qalinleyda iyo hal abuurka Soomaaliyeed ee Ben. Wuxuu ka hadli doonaa mowduuc asna la yiraahdo qofka qoraaga iyo qiimaha iyo waxtarka uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed. Ku soo dhawaad Sudan. وكيرنا إن شاء الله. بسم الله والحمد لله. marka hore waxaan rabaa inaan u mahadnaqo Ifraax oo halkan igu soo casuuntay. Marka labaad anoo ku hadlayo magaca naadiga qalinleyda iyo hal-abuurka Soomaaliyeed ee Somali Pen. Somali Pen waxay ka tirsan tahay Pen International. waxaa jira Norwegian Pen, waa ogtihiin aan u malaynayaa, iyo akademiyada goboleedka afka Soomaaliga. anoo magacooda ku hadlayo waxaan u hambalyaynayaa walaashan Ifraax hawshan culus ay qabatay. runtii buug in la qoro wax sahlan maaha. uu ka kala istaagayaa adoo waqti dambe jiif habeenkii laga yaabo ama sirta saaran ama jidka maraayo kale inay wax kugu soo dhacaan, qalinkii aad kula ordo markaas iyada laftirkeeda dhici karta. marka hawshaas saas culus ay soo dhamaystirtay iyo halkan ku soo koobtay waa ugu hambalyeynaya marka koowaad. marka xiga waxaan rabaa runtii 10 qaadanay oo Soomaali ah. su'aalan rabaa inaan idin weydiiyo. su'aasha sababta ugu weyn aan idin weydiinaa waxoogaa inaan idin ku mashquuliyo oo warkan sheegayo dhan aad maartay iska ilowdaan. maxay la war macna lama hayo. su'aasha waxa weeye alfabeetka Norwejiga A ka bilowdo maaha. English sidoo kale, Faransiiska sidoo kale, luqad kastaba A ka bilowda alfabeetka. xataa Carabiga alif ka bilowda. Soomaaliga waa maxaa dhacay oo ba ugu bilowda. ba ta jaaxa saas loo dhigaa Soomaa. sababtoo ba ugu bilowda kuwa kale A ugu bilowda maxay tahay? xogaa xujo waay. gadaalanka sheegi doonaa markaan hadalka dhameeyo insha Allah. qofkii jaadada farta taagi waxaan u malaynayaa jawaabta in la hayo. qoraalka sidiisaba Soomaaliga goormo bilowday? qoraalka ugu qadiimsan ee la hayo Soomaali oo dabacsan aan ku hadlaan isku dayay hadii la garan waayo, for the benefit of those who don't speak Somali, af Ingiriis ku sheegi kara, af Norwegian ma aqaan. marka inta soo gaado qoraalka ugu qadiimsan ee la hayo waxaan u maleynaa 1895 nin la yiraahdo King
ayaa qoray laakiin wuxuu ku qoray far carabi isagoo farta carabiga sababta u xushayna barigaas uu ku sheegay maadaama xarfaha annaga aan leenahay sida caadoo kale sida xaadoo kale sida khaadoo kaleeto oo wadamadan oo European-ka aysan lahayn weel carabiga ilaa marka wuxuu siiri carabiga isleeyihiin carabi ku qor xiliyadaas xiliye aad ugu dhow isagana Sheekh Aways waa maqasheen oo maleena ziyaarada Sheekh Aways la aaday iyo Soomaalida wax badan waa ka maqasheen oo maleena oo isagana qasiidooyinkiisa iyo fariimihii uu diri jiray far carabi ku qori jiray laakiin Soomaaliya ahaayeen hadalkan aan sheegay aan ku hadlayno Soomaaliga oo far carabi lagu qoray oo kaliya ahaa waa la soo soconaya waxa la imaanaya 1920 ilaa 22 oo Ismaan Yuusuf Kennedy far oo isaga uu alifay oo qoray bal ka fikir Soomaalida dadaan waxba aqoonin dad sidaan laga sheegaa 1920 qof joogay oo Soomaali ah oo far alifay oo qoray oo farti ay habaysnayd oo walaashan haday SYL aad u soo qaadatay oo SYL hal diganka intii ku jirto dhan farti adeegsanaysay farti isticmaalaysa waxay ahayd fartaas oo Ismaan Yuusuf Kennedy uu qoray farta waagi hore waxa la dhigi jiray far Soomaali markii dambena waxa la dhigi jiray Usmaaniya iyadoo loogu magac daray ninkii qoray waqti oo yar far walba dul istaagi karno laakiin Sheekh Cabdiraxmaan oo reer Boorama aha far uu qoraya jiray kadara far uu qoraya jiray farta aan hadda adeegsano dad qoraya jiray oo shir jaamac ugu caansan yahay Muuse Galaal oo marka hore farta carabiga wax ku qori jiray markaan dambena farta Laatiinka qaatay qoraalku soo socday ilaa iyo 1972 la soo gaaray 72 dawladdu waxay ansixisay farta la qaadanayo inay noqoto farta Laatiinka dhowr sabab loo qaatay dad waxa jir barigaas ku qanacsanaa in farta Cusmaaniyada la qaato maxay yeel far annaga aan leenahay waa annaga aan alifanay waa dawladda laakiin meel badan ka fiirsay go'aanka ugu dambeeyay sababta u qaadatay waa laba sabab ugu weyn la yiraahdo mid koowaad waxa way xagga dhaqaalaha makanidii typing machines bariga yaalay iyo maktabadihii oo dhanba in la xaaqo kuwa cusub la keenay noqon lahayd dhaqaalahaasna wadanka ma lahayn tan labaad waxay xaq farsamo oo farta carabiga dalal badan oo caraba waxay ogolayeen markaas makiinadahan oo dhan inay naga bedelaan haddaan farta carabiga qaadano taasna dhinaca farsamada problem ka keenay maxaa yeelay carabigu wuxuu qabaa saddex vowel uu qabaa alif ya iyo waaw Soomaaligu wuxuu qabaa 5 shaqal oo 5 kala noqonaya haddana marka dambe marka farsamo ahaan iyagan miskeenayaan sababtaas loo qaatay waxaana u maleynayaa inay dawladda asiibtay inay go'aan fiican qaadato sababtoo ah 72 hirgelintiisa la bilaabay 73 dadka magaalooyinka degan iyo shaqaalaha dawladda iyo ciidamada iyo farta waa qori kareen already 74 dadka miyiga baadiyaha joogay ololaha horumarinta ramiga waxay la yiraahdaa la sameeyay 75 ani dadkii barigaas ololaha aadan ku jiray dadka baadiyaha waa barteen hadii farta Ismaaniyada la qaadan lahaa xarafkaas inaa memorise gareys naftirkiisa waqti dheer ku qaadan lahaa Soomaa laakiin wixii dhan way sahlanaadeen saas u sahlanaadeen qoraalka iyo buugta markaan u nimaadno buuggii ugu horeeyay novel way kan buug sheeko waa buuggii sheeko ugu horeeyay ee la daabaco oo ballaaran oo Soomaali ah waxa qoran nin la dhihi jiray Allah ya raxma Farax Awl aqoon darro waa u nacayb jacayl la yiraahdaa waa sheeko aad qurux badan oo dhacday dhamaadkii 1800 bilowgii 1900 meelaha oo dhulkaas xiisi meeyr oo maaragtay dhankaas waqooyiga dooma ka bixi jiro oo Yemen aadi jiro soo noqon jir waxa jirtay ninka sheekada ay ku socoto Ali Maax la yiraahdo nin wax qori kara waxna aqri kara ma ahayn laakiin gabadhu jeclaaday ee Awrala gabar wax taqaan ay wax aqri kartay imagine qof Soomaalida waxa la yiraahdaa gabdhaha waagi hore saanay ahayn gabar waqtigaas joogtay wax qori kartay laakiin ninka is jeclaadeen waxba ma qori karin xaashiye u soo dirtay ayuu aqrin waayay markaas wuxuu u keenay walaalkeed oo yiri xaashidan ay aqri jacaylkeedina ka hadlaysaa xogaa waa yara fol xunta Soomaa
walaalkii wuu fiiriyey wuxuu yidhi niyo xaashadan ma aqri kara iga hoo aabbaheeda u geeyey oo yidhi adeer meesha maxaa ku qoran adaa yaqaane marka waa sheeko runtii aad iyo aad u qurux badan maahyo iyo gabayo aad u qurux badan iyadana ku jira sheekada sheekooyinkii ku xigay buuggaas waxaa loo bedelay English UNESCO ayaa maalgelisay in English loo bedelo English markii loo bedelo direct translation la sameeyay waxaa la yiraahdaa ignorance is the enemy of love aqoon darro waa u nacab jacayl u ahaa buugga magaciisa marka horeeto waa la soo socday waxaa la yimid dhammaadkii 70aadkii 79kii buug waxaa jiray sheek waxaa jirtay Soomaaliya dhan qabsatay especially xamar aad u qabsatay maxaa yeelay joornaalka bariga soo bixi jiray xiddigta October lagu soo qori jiray waxa la dhihi jiray Maanafay Maxamed Daahir Afraxa qoray sheeko qurux badan waa idin laftirkeeda aad u qurux badan maktabadaha hadda daagtidan librarieska biblioteca waa ka heli kartaan kadib buugas waxsina waxa ku xiga buug kale isku waqti ahayn aad iskugu dhawaay ayaan darana la dhigi jiray sheeko muruga badan oo yani xanuun badan ay ahayd ayada laftirkeeda waa waqti ugu horeeyay dadka ay jeclaadeen oo aad ay maaragtay ay u xiiseynayaan bariyahaas jiray waa la soo socday waa kala soo baxay waxa burburkii ay yimid dabadaha la yimid mar kale dadkii waxay bilaabeen inay wax qoraan fartii iyo afkii iyo xooga burburka ayaga laftirkooda dhinac ka soo gaaray waxaa nasiib wanaag in maanta aan joogno gabar reer Norway ah reer Oslo ah walaashin saaxiibadiin ah ee buug cusub inoo soo bandhigta halkan buugan ani weli ma akhrin laakiin doctorku akhriyay wuxuu yiri ila ooy hadda akhris waa la ooynaysaa marka iska ilaaliya عملنا إن فسلتي وحلا سوقاتي وباهنتها مركا بوجان الآخرين أيه الله دياريه قفك قراجة لباتوي أو صومالي لباتوين بدنا هايستا مركو كوات وإنه حدي بوج كسابسن دعوين هرئي تهين وريسيرش بدنا إنه سميه حدي بوج وسجل اللي في تأسيس الشركة أنو كلتنا وحبه هي إن uu ku dhafro waqti badan geliyo juhdi badan geliyo dhibaatooyin badan kala isku maaya kadibna oo dhowr mar ku noqdo qaladaadkii yar yar ay ku jiro uu saxo hadda adii kaliya saxdo indhihii awal aad ku aragta hadana markale ku arkaysaa marka waxa u baahan tahay qof kale oo kula fiiriyo hadana buugii intaas markuu ka soo tago wuxuu u baahan yahay inuu daabaco waa inuu jeebkiisa ka maalgeliyaa hadana waa culays kale markuu daabaco uu soo baxo buugii waa siraahid markaan cunugii waa dhashay shaqo cusub ku taal oo ah iibgeynti buuga hadana buugta badana Soomaalidu ay qorto lacag badan laga sameeyo oo ujeedadana ma aha in lacag laga sameeyo laakiin at least dhaqaalihii dhafarkii iyo dhibaatadii ka soo maray yeelkada bee dhaqaalihii gale daabacaada qayb kamid ah inay soo noqoto waa waajib markaas si ay ugu dhiirato hadana mar kale in buug kale ay daabacdo marka annaga maxaan sameyn karnaa annaga waxaan sameyn karnaa qaybtaasaan kala qayb qaadan karnaa buugga inaan iibsano buugga haddaan iibsano waxaa fududaanaysa in buug kale la qoro haddaad rabto xataa ha iibsan laakiin local library-gaada haddaad tagto oo aad tiraahdo buugga ila ooy la yiraahdaan rabaani markuu laba codsi u timaado iyagu maxay sameynayaan waxay ka dalbanayaan ama qoraagi ama shirkadaha buugta iibiya ay ka dalbanayaan si loogu keeno marka waxa wanaagsan inaan jeebka gacanta gelino oo buugga iibsano haddii ay dhici weyso sabab kastaba waa in library haddana anagoo iibsanaa wanaagsan haddana library inaan tagno maxaa yeelay Oslo intaan kaliya ma nihin dhowr kun oo kala joogta waa caawa ka soo qayb gali weysay caawa habeen shaqo darteed marka waxaan dhihi lahaa arintaas waa aad iyo aad muhiim u tahay maalin dhaweed waxay la soo xiriiray National Library-ga oo ii sheegay in ay rabaan inay sameeyaan barnaamij oo ku saabsan afka Soomaaliga afka iyo dhaqanka Soomaaliga sanad walba way sameeyaan sanadkan focuska waxay saareen Soomaaliga iyo afka Polishka
marka waxaan u malaynayaa inay yiraahdeen 3 May u dhacaya barnaamijkaas afka iyo dhaqanka iyo buugta iyo qoraalka iyo Soomaaliga lagu soo bandhigaya annagoo number badan inaan nimaadno meesha silafsirkeeda waa fiicnaan lahayd waxay weydiisteen inaan ka qayb qaato marka aan waan siiyay ina maaragtay ogolaashahaas inaan ka qayb qaadan doono hadduu Ilaahay yiraahdo marka waqtigu ciriiri ah dhowr qof oo kala rabta inay hadasho Ifraax buuga ka hadli doonto su'aalo badan oo ka weydiin doono waxa ka oysiyon weydiin doono ayaan u soo noqonayaa su-aashii isku dayay inuu ka jawaabo af Soomaaliga way kala qaybsan yihiin oo shaqalka iyo shibanaha soo luqadaha kale waxa weeyaan wax isku xiran yihiin sida daraadid marka shibanihii hal meel bay ugu horeysa soo bay ugu bilaabanaya shaqalkiina wuxuu ka bilaabanayaa sax waaye waa laba sabab waa midaas oo ah markaad fiiriso aniga maadaama Norwegian aqoon English ahaan oo soo qaadanaya A B C D E A F يعني ساسي أسعة سما Soomaaliga like saas iskugu mixigaan si kale iskugu xigaan midda kood waa sidoo Ismaaciil sheegay oo ah in Soomaaliga shibanaha shaqalka la kala saaray consonantiga iyo vowelka in la kala saaray midda labaadna waxa weeye fartan laatinka marka la soo saarayo olole waxaa jiray lagu diidanaa oo lahaa dadka waa la gaalaynayaa laatiin waa laadiina la dhihi jiray beerkaas si cuqdadaas loogu saaro dadka marka cuqdadaas si loogu saaro afka carabiga sida ugu yeer bariyii horeeto ba'ta jaxa lama dhihi jirin waxaa loo aqri jiray sida carabiga uu yahay oo kaleeto caadoo kale lama dhihi jiray ayna la dhihi jiray jacdo kale tajiina la dhihi jiray bilowgii hore si loo sabar siiyo oo loo dejiyo dadkan laatiinka diidan oo dhahayo waa la isku gaaleynaya marka labadaas sabab ayaa keentay in afka Soomaaliga uusan a ka bilaaban oo ba ka bilowdo waa mahadsantihiin buugayaan moogaanin aad u mahadsantahay aad u mahadsan yahay diini waqtigana waa siday too noogu soo koobay marka aad u mahadsan yahay xilliga intii 12 daqiiqo uu qaatay marka waxaan siinayaa Saciid waa saxafi waa qoraa waa muxaati fatiraha Nuursom waa la wada garanayaan u malaynayaa marka ku soo dhaw Saciid wuxuu ka hadli doonaa asna السلام عليكم marka hore waxaan ku bilaabayaa inaan u hambaliyeeyo Ifraax shaqo badan iyo dadaal badan kadib maanta wixii aad inta soo dhafraysa cala aqal meeshan ku jiraan ugu yaraan intaas kadib sidoo abtidoon sheegay qofku markuu buuq qoro waxa ugu muhiimsan hambaliyada kadib waa in laga gato halkan waxa ku fadhinaa 35 kamid ah haday buuq gataan inaad soo maanta marka waa shaqadina loo baahnaa waa qabanay marka muhiimaddu ugu weyn waxay tahay buuga Ifraax hal gato intaas kadib qofka Soomaaliga ee qoraaga dad ma lahan sababtoo hadda waxaan la fadhiyo Dr. Maxamed oo kale halka fadhiyo abtidoona fadhiyo gadaal waxa fadhiyo nin la yiraahdo heer saro asna chief of wari weyn oo tiftira wargeys weyn ka ahaa Hargeysa inta nu jirta inteena laakiin hadda qof kale ahaan la waa la garan lahaa marka qofka ugu jirta waa naqaan adiga ma xukumin macnaha waa naqaan okay waxay noqotaa waxa jiro nin saaxiib nin oo taqaan laga yaabo oo qoraa luqado badan wax ku qoraa Ingiriiska iyo Carabiga u badan maqaalo badan wuxuu ku soo daawacaa Al Jazeera iyo Washington Post maalin baan su'aal weydiiyay waxaan ku dhahniyahow buwaagtan oo qoraaladan ma Soomaali ku qortid arigu yiri waxa wuxuu yiri Soomaalida wax ha u qorin ayaga ka qor hada ayaga wax u qortid kaama gadanaya laakiin hada ayaga wax ka qortid waa la wada xiiseynaya anoo taa xasuusan baa waxa 2016 Norway waxa soo baxay buug uu qoray ninkii Jens kii odayga wasaaraha Norway ahaa 9 sano Norway ka ahaa wasaare
haddana naagtu xokeeye ka yahay dan buug uu qoray uu uga sheekeynay noloshiisa at the same time waxaa soo baxay buug kale oo laga qoray 2 gabdhood oo Soomaali ah oo 2 gabdhood baaruunka tagay oo Daacish aaday Jens Norway wuxuu 9 sano ka soo ahaa xilliyada ugu adkaa finance crisis waxyaabo badan buu ka soo ahaa can you imagine labada buug oo isku mar soo baxay keel gadasho badnaa ma qiyaas kartiin ka Soomaalida micnaheedu waa la xiiseynaya wax lagu wada la rabaa waan muhiim marka waxaan iska qorno waliba annaga aan qorno taasoo ay buugan ifraax iyo buugta kale Soomaalida ay muhiim u yihiin kaliya sheekada maana waxa ka muhiimsan waxay documentary gareynayaan dhacdooyin muhiim ah oo Soomaaliya ka dhacay xilliga buug la qoriyay tahriibka argagixisada waxyaalo badan buugna yani qisada waxa ka muhiimsan sawirka picture ku bixinaya oo ka bixinaya mujtamaca Soomaaliga marka ugu dambeyn waxa ugu muhiimsan hambaliyada kadib buuga gadan halkaas yaalaan marka waa maasantiin aad iyo aad u mahadsantahay waxaan malaynaa waan ka xunnahay dad badan oo maxay hato qorayaal dhalinyaro aqoonyahan ayaa jooga Ismaaciil halkii ma dhilad 1 minute Ismaaciil waa nin dhalinyaro aqoonyahan mihiye laakiin nabadgelyo in naxariistu shinaato marka koowaad waxaan rabaa inaan akhriyo gabayiriisa qalinka wax suureeyo kugu sima halka doonto saaxiib kal furan weeye ayaa waxa qoray Maxamed Warsame Hadraawi wuxuuna sheegayaa faa'iidada ay leedahay qofka wax qora iyo qofka qoraaga marka wadamada aan ka imaanay qaasatan wadamada muslimiinta badankooda waxay u badan yihiin markii buug la qorayo waxa la qoraa buugta ugu saabsan xaqiiqaha waxa laga yaabaa in buug science ku saabsan wax xaqiiqada sida badan la qoro oo aan la qorin waxyaabaha shan literatureka ah oo alashan waxyaabaha sheekooyinka sheekooyinka sheeko xariirta aan la qorin marka sheeko xariirahan wax far badan ayaa laga baranayaa bulshada hab dhaqankeeda iyo sida ay yihiin ayaa laga baranayaa tusaale ahaan gabadha markay sheegaysay ilmaha oo cudurrada kala duwan qabo inaan Soomaalida dhexdeena aad loogu waxay waa arimo aad dhibaato weyn u ah sida for example qofkii ilaa in la dhaho ilay midkii dhagla in la dhaho dhagay waxaas marka waxa weeyaan bulsho waxaas aasaamayso qof walba qofka kale uu farta ku fiiqo taasna waxa ka dhalanaysa in dhammaan dadka oo dhan ay ceebahooda inta qariyaan ay isku dayaan in ceebahooda say u qariyaan dadka kale iyagana ay ku sii xadgudbaan kadibna wadankii khilaafaad iyo burbursaas ku gaaro marka waa wax aad iyo aad u muhiim ah inay walaasheen buuga hadda qortay waxaan rajeynayaa insha Allah taala dhalinyaradeena wax baranayso in iyagana ku daysadaan si ay buug la mid ah u qoraan maxaa yeelay xilligan aan noolnahay globalization-ka Soomaaliya waa wadan faqiir ah aan lahayn institution adag oo dhaqankii iyo afkii Soomaaliga ilaalin karo marka waxa loo baahan yahay annaga dhalinyarteena wax baratay kooda iyo hadda wax baranayo inay noqdaan dawladii iyo dadkii ilaalin lahaa afka iyo dhaqankii Soomaaliyeed maxaa yeelay hadii taas ilaalin weyno haddan dhaqamo iyo dad naga fara badan ayaa luqadahooda aan maanta qori karin oo aan haysan jaanis ay ku qoraan ama ay ku akhriyaan aan luqadooda weligeed qori karin maxaa yeelay haddana adduunku ka horumartay hore oo waxa weeyaan qof walba Soomaali wax barto ama wax ku qoraa Carabi ama wax ku qoraa Ingiriis waxa weeyaan Soomaaligii waxa arkaysaa in laga faanayo ama uusan qofku u maleeyeen aqoonyahan data waxa u baahan tahay in luqad dheeraad wax ku qorto taasina meesha laga saaro oo aan rajeynayo insha Allah taala in dad fara badan ay meesha ka saari doonaan waana mahadsantihiin waxaan leeyahay waa mahadsan Ismaaciil waa arday jaamacadda Oslo waa doodihiisana waa NRKoogii waad ka aragtaan oo malaynaa aad u mahadsan yahay gabagabadii runtii waxaan malaynaa waa dad badan oo masaamaxaysa fursadu waqtiga ugu yar marka kadib on kafay waxa jiri doona hadii la yiraahdo waa soo gabagabeynaa marka hadii la yiraahdo intaan la gaarin laakiin waxaan u yeerayaa laba gabar oo barnaamijka ka qayb qaadatay waa Hani iyo Nasro si ay maxay hato u guddoonsiiyaan dadka ka qayb qaatay barnaamijka hadiyad ku soo dhawaada Okay.
Soomaali waa ku hadlaa mase nooshka Soomaali midkii fudmay waxa u jeeda baalka gabdho badan oo asxaabtay meeshan joogaan ma sha Allah oo dhalinyaro ah dabcan waa isku dayay ka dhalinyaro ah ma sha Allah dad buugta oo ogaa in badan waa ogahay in dib ku tan af Soomaali ay akhriyaan saaxiib badan gabdho badan meeshan joogaan dib ay ku tahay laakiin dhibaato ma lahaan waxayna dhahay lahay baroweya tilma wax yariis bisla in akhrisin wax min ka dhibeyso baroweya wallahi an marka yaraa waa akhrin jiray af Soomaali wax yariis akhrin jiray wax badan ku bartay luqadda Soomaaliga ism dalka wax badan ka baran doonta marka waxayna dhihi lahay in kasta dhibayn ku taa wax rabtaa in ku ahaato wax yariis uun akhriyada hal page xataa ahaato biga tilma hayn challenge darabtiin eat for drink okay so waxayna dhihi lahay masha Allah buuga ina akhrisin aan dhihi lahay oo talabaad waxa rabaa ifraax mid marka aniga ay yaray ifraax baalkiis xilal 2005 ee waxay bilaadeen baalkii ee akhriso aqorto buwaagta 2005 ee gabadhiisa markaas laakiin kasta waxa xasuusta buwaagteedu akhrin jiray intii qayb garis inta qorto aniga baalka wala fiirin jiray okay ifraax waxaan dahar birka bira waxa rabtaa wala akhrin jiray marka yaray marka yeah but so stolt liksom när man meeshan ay imaatay efter 10 år ända mer faktiskt ina meeshan ay imaatay hadda buugaada oo imaaday marka ambalyo das goreelay so koogina dabcan marti sharafkana siina way hadiyadooda ayaga aad iyo aad u mahadsantiin dhamaantiin waxaa dadkii barnaamijka qayb qaatay inta kadib aad iyo aad u mahadsantihiin kasoo qaybgalkii